Wararka ka imaanaya deegaanka la foolo ee duleedka magaalada Muqdisho caasimadda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay qarax miino ah oo sababay dhimashada hal ruux oo askari ah isla markaasina ka tirsan ciidanka ammaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Qaraxan miinada ayaa ciidanka lagula eegtay suuq ka dhawaa bar kantarool ee ciidamada ammaanka Soomaaliya ay gawaadhida soo galaysa magaalada Muqdisho uga qaadaan lacago. Waxaa ku dhintay inta la xaqiijiyay hal askari halka dhaawacuna uu yahay hal askari oo kale. Ciidan kale oo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa goobta gaaray waxayna fureen rasaas xoogan oo keentay inay kala cararaan dadkii ku sugnaa suuqaasi. Goobjoogayaal la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in hadda xaaladdu ay degan tahay isla markaasina askariga dhintay iyo ka dhaawacaba loo qaaday magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Ma jirto cid ilaa hadda sheegatay mas'uuliyadda weerarkani lagu qaaday ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya, balse waxaa lagu tuhunsan yahay inay ka dambeyso kooxda xarakada Al-Shabaab oo iyadu alaaba qaraxyo iyo dilal kala duwan ka geysatay gudaha Soomaaliya.